السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa intan maanta halkan noogu timiday ee hawshani dadkani tabaalaysan ee halkani aad ka arkaysaan nagu soo booqatay. aad iyo aad baan si qayma iyo qaayalaan oo marxabaysan baan uga gudoonay annaguna. dadkani waxa weeyi waa sida aad arkaysaan ee sawirka waa dee hawl ilaahay farsamo ilaahay weeyaan waxa haysatay ayaan daaw aragnaa. waxa u horeeya Yaasiin Maxamuud Ibraahim waa nin ilaa da'diisu hay tahay 10 jir weeyi. xanuunkiisu waxa weeyi dee ilaahay un baa garanna waa xanuun macna suuxdina kolkol baa lagu soo degayaa kolkaas sidii wuxuu gariirayo ayuu noqonayaa muddo saacada ana nafta way ka maqan tahay. kadib baad ka arkaysaa ayuu dee soo nayaayiranayaayo aan korde u toosayaa fadhi kor uma sare kacayee fadhigii ku noqonayaa. ninkaa gedihiisu waa 10 waa Yaasiin waa ninkaa leh xanuunka suuxdinka. waxa ku xiga Hamse Maxamuud Ibraahim ninkaa hore iyo Hamse waxa u dhaxaysa inantii u dhaxaysay waa gashaanti meel kastaba lugteeda ku tagaysa. ilaahay baa dee farsamadaa leh. dadka caynkaasa wax weli daryeel wax hay'ada iyo wax daryeelahoon weli wuxuun ka arkay ama la doontay ma jirto. dahriga iyaguna wuu naqan yahay wadiga arkaya hooska iyaga waa ninka arkaya iyo macna budayadaba iyo daha iyagaba waa ninka arkaya. codsanayna wixii ummadda Nabi Maxamed ee islaama ee uu sawirkaasi soo gaari war dadka caynkaasa inuu wax naga soo tarade. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. بربارتا يا ubaxa ilaahay nacmadiisa halkaad ilaahay barbaarta u keenay barwaaqada ilaahay nasiiyay jannada ilaahay nasiiyay waxaan baraynaa dadka walaalaha inay ilaahay soo gargaaraan barwaaqada iyo jannada ilaahay nimcadana ilaahay ma ku shukriyeena bilaadan kuma kale wax ilaahay keenay weeyaan ubaxa barakaysan in halka ku haysta xarunta cidla ilaahay ma in cid kale day gargaaraysa ilaahay bay gargaarayna caawiyayna asturayna arsaaq ya dadka soo walaalaha waxaan ka barayaa inay waxaan dhaqaatiir ama si dawooyin ama dul hamariyo walaalaha oo taageero inaad ilaahay hortii dartii leeyahay ku taageeraan. halkan waxaan ku soo booqanay awlaadda aad arkaysaan ilaahay nimceeyay nimcada alla ku riday waan ku soo booqanay annakii oo maxaan ku raadaay ilaahay dartii u soo booqanay oo ilaahay dartii u soo siyaaranay. waxa weeye maxaan ku raad waad arkaysaan oo awlaaddaasi oo ay barakaysan tahay nimcada ilaahay baa ku dhacday. qoyska reer meeshana maxaan ku raadaay qoys isaguna iska barakaysan oo nimcaysan. labadii waalida dhalay way joogaan oo waad aragteen. waxa weeyaan dadooda waa la idin sheegay iyo magacdoodaba oo maxaan ku raadaay waa labada wiil midna waa 10 jir midna waxa weeyaan maxaan ku raadaay 5 jir weeyaan. shantaas ay kala weynaayeen xanuunkaana way ku dhasheen oo maxaan ku raadaay way ku dhasheen waa xanuun ay ku dhasheen. ma kacayaan ma hadlayaan wax kale oo xarakaada ma laha. marka waxa weeyaan maxaan ku raadaay waxaan idinka codsanaynaa oo ummadda ka codsanaynaa oo muslimiinta ka codsanaynaa in ummadda cidii dareen leh maxaan ku raadaay damqanaysa maxaan ku raadaay inay soo caawiyaan oo waxay ku soo tari karaan ku soo taraan. daryeel caafimaad ma haystaan daryeel maxaan ku raadaay hooy ma haystaan baadiye ku nool yihiin. waxa marka maxaan ku raadaay galbeedka Boorame ku nool yihiin baadiyahaas ku nool yihiin 3 buurood dhexdood bay ku nool yihiin. marka yacni xaalkooda Ilaahay raxmaana un baa yaqaana oo qiyaastooda maxaan ku ilaahay in baa qiyaasi karaya.
marka waxa weeyaan dee alxamdulillaah ilaahay isku keen ilaalinayaa inta ayaan ka sii liidatana way jirtaa oo dee ummad ka liidatana way jiraan marka labada waalid ee dhibanaha ay awlaadaasi sidaas wada dhiban ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay awlaadooda u caafiyo oo caafimaad sareecana u siiyo yacni waxaan ku raday waxa weeyaan wax lagu cibra qaato waa cibra qaadasho waxaan halka ku aragnay iyo ubadkay sida ay yihiin waa cibra qaadasho lagu cibra qaato marka waxaan leeyahay maxaan ku raday ummadda muslimiinta ee muxsiniinta ee daafaha dunida ku kala nool cidii maxaan ku raday ilaahay wuxuu uga soo adeejiyo iyo cidii wax soo tari kartaaba waxa soo tartaan leenahay ilaahay idankii ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadle inaga yeelay islaam inaga yeelay mahadle waxa mahadle ilaaha maartay noo qadari maanta annaka inaan booqasho u nimaadno dad dhibaataysan inaan soo booqanno ilaah nagu ilhaamay baa yaa mahadle waayo waxa weeyaan imaadkaan maanta u nimid annaku ilaahay agtiisa ajir baan ka helaynaa markaan niyoono markaas ilaahay baa subhanahu wa ta'ala mahadle waxa halka laba qof baa jooga waa laba wiil weeyaan waxa dhalay maxamuud ibraahim nuur baa dhalay wuxuu ku nool yahay maartay meesha la yiraahdo maartay ilaa la dheere oo boorama galbeed ka xigta marka fulfulka laga dhaca waxoogaa marka shabeelle la dhaafo ayuu ku nool yahay buuraha kulay sawirka waad ku arki doontaan buuraha hareer naga xiga ayuu ku dhex nool yahay beeraley bay haayeen xoolo ka madhan magaalo cid uma joogto caruurta yar yar ee curyaanka een hadlaynin ma hadlayaan ma kacayaan waxna siiya male dareerkii baa sawga yaacaya dadka waxaan aaminsanahay hadii maanta ama dhakhtar heli lahaayeen in wax loo qaban lahaa sidoo inuu sheegay abihiba hore uu sheegay waa 15 waa xamid waa 10 jir buu yiri midna waxa weeyaan qof u dhaxay waxa weey waa 5 jir weeyaan waa dadkii maanta miyiga intifaac noqon lahaa waka adarkaysa maanta inay 10 jirka waka maartay dhulka galgalanaya adarkaysaan dadkaasi markaa dhibaatada ugu badan waagu markuu bariyo waxa weeyaan nin walba maartay aabihii dhulku biyo ugu arooraya hooyadii xoolo yar bay daba ordaysaa xoogaad arkaysaan bay daba yaacayaan xoogaasi gurguuranayaan xoogaad arkaysaan ayay gurguuranayaan oo ayna gaaraha ku joogsadaan ayna lahayn oo qodax mudda iyo dhagax xagta xoogaasi soo gurguuranayaan haddii maanta qol yar oo lagu xereeyo uun ay heli lahayn maanta waxa weeyaan jilbaha iyo waxa maartay maanta haystaa waxuun bay maartay ka nabadgeli lahayn marka waxa weeye waxaan leeyahay islaamku waxaan leeyahay jecel wanaaga jecel maartay inuu xal baxaan jecel halka maanta wixii ajir laga heli baa yaala cidii ajir laga heli lahaa ayaa taala waxa weeyaan waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala maalin ba iman doonta waxaad maanta bil baxaysaan oo inaa fici doono nabigeenu wuxuu alayhi salaatu wasalaam kolkuu xadiis badan soo waday wuxuu ku gabagabeeyay oo yiri wataqun naara walaw bishiq tamrati wa naarta ka cabsada timir jeexidna Allah ka yeelay naarta ka cabsada ayuu xadiis kale wuxuu ahaa sadaqadu naarta ayay u baqtiysaa sida maartay biyuhu dadku u baqtiyaan marka sadaqadu oo la baxaa مثلا cibaadooyinka markaad cibaado la timaado cibaadeysanayso ajir baa laga qoraya salaad intaas lagu labanlabaya soo kuntaas uu leeyahay laakiin waxaad gacanta kala baxdaa sadaqada gacanta kala baxdaa waxa ugu qaalisan weeyaan marka maalin bay ma doonta maxmaad la baxo la oran doono ayaa jira marka waxaan caalam islaamka leeyahay cid wanaaga jecel meel kasta joogan ilaahay dartii caruurta soo xanaaniya